Si guud hadaan warbixin iga siiyo xaaladdu si u dhacday anoo gabadha aabidaan oo ah gurigan joogay nimankana niman aniga ii shaqeynayeen Etoobiyaanka kale qoomiyadaha kale ay ahaayeen meel baan faarad iyo guriga isku dhex yaaleen marka anigu intaan qado nin u dirsay iyaga kamid ah qadada ii keenay guriga galay markaan galay waxay igu xigtay warsoorid bay igu xigtay iyo gabar la liminayo Bismillahir Rahmaanir Rahiim anoo dhibanahay gabadha ka dhimatay ah magacayga la dhawaas Arab Ugaas Maxamed Shabane warbixin iga siiyo xaaladdu si u dhacday anoo gabadha aabidaan oo ah gurigan joogay nimankana niman aniga ii shaqeynayeen Etoobiyaanka kale qoomiyadaha kale ay ahaayeen meel baan faarad iyo guriga isku dhex yaaleen marka anigu intaan qado nin u dirsay iyaga kamid ah qadada ii keenay guriga galay markaan galay waxay igu xigtay warsoorid bay igu xigtay iyo gabar la liminayo kadib markaan meel fresh kala sidoo kale u dhigay gabadhii aan yaro dhooray oo damacaynan inaan naqaska inuu ku dhagan yahay mooday aan xogaa aan laabteeda xogaa yara cadaadi saar sidii aan laabteeda u soo kacdo aan markaa falcelintii baan damacaynan dhooray markaan falcelintii dhoor sidii waxaan arkay isla markiiba xarig gabadha ku dabranba oo ku ciidsan xarigii baan markaa waxaan yiri bal ii keenay midi baan yiri nimankii la shaqeynay waa nimankii falkan ee hadda looga shaqsan yahay iyaka midida hadana ii keenay iyaka hadana ila raacay dhakhtarkii ila geeyay dhakhtar markaan tagnay sidii kaarka aan soo qabtayba waxa la yiri xaaladda iyagoo dhakhaatiirta iyo nurse-yada dhooray markaan arkay gabadha ma dhimata haabay dhahay ani markaa cid ila socoto iyaka ka ahayn nimankaan ii shaqeynay ma aysan jirin abar markaan joogay gabadha xaaska aan la hadlay iyada dadkii iyo ninkan walaalkeen labada aan wacay dadkii iyaga inta dambe iswa wacay abar markaan joogay dadkii ay soo gaarin umbaan gabadhan soo xari kamaada fujinaha hasay wax u jira baan aniga dib aan miyirkii u soo noqday kadib dhakhtarka waxaan waxaad sameeysaa man gabadha general check up ku sameeyay gabigeedaba especially qaybaha genital area-ga yaano qaybta yaano ma garanaysaa privacy-geeda uma u baaran ku yiri kadib iyaga labtooda araygii waxbay ka garteen durba baaritaankii way galeen ha galaan laakiin durba jawaab degdeg ah namayna siinin way isdul yara warwareysteen waxay noo sheegeen dhakhtar kale iman doono muddo hal saac bar dambe anagoo sugayna ay nimankii damcayna iska tagaan nimankii ninkan walaalkay baa nimankii way tageen igu yiri waanu yeeray halka fadhiya waan wada tageynaa baan ku yiri haddana jawaab kale anaga dib isku cilna maskaxdana ku noqonay waxaan nidhi nimankan wax walba dhici kare laba shay baa isdul saarna marna waa kufsi marna waa badil laba xaalo weeyba kufsi cadeynteeda maxaba meesha yaala laga sugiba dil baa yaalabay sidii ma nimankii aan u yeeray waxaan yiri booliska raaca hawshan hawl dila meesha taala wax kufsi aan u sheegay marka oo shaka oo maanishay boolis meesha joogay iyo nin aan adeer wahay baan isku daray sidii habaana loo gudbiyay kadib habaana iyakuna dhakhaatiirta intay yimaadeen midaan waxa tagtaan Kaaramaarna hospital tagay Kaaramaarna tagnay laba dhakhaatiirta oo rape cases-ka u qaabilsanaa one center shop la dhaho baan u tagnay markiiba noo cadeeyeen walaalkay baa na tuseen waka xaaladda meesha saas bay u dhacday dheen fal xun baa dhacay dheen hadii wixii cadeynayay qoraalan anaga waan in dhameystirnaa dheen sidii baan xalayto hawshii kulli wax noo yimid gabadha waxaan halka rabaa inaan aad ugu bogaadiyo gabadha la dhaho ubax wasiirka xogeenka arrimaha dhalinyarada haweenka ah way noo timid rag badan oo akhyaar ah oo wasiirka biyaha maareeyaha biyaha uu noo yimid Cabdirashiid Maxamed Cumar Haaguf uu noo yimid commissionerkii gobolka ama councilka isagana waa noo yimid si guud baaritaankii xalayto iyo kuwa galeen wax natiijadiina ma hayno waayo gacan boolis waa wali lagu jiraa booliskana wax war reporteena siiyeen inuu shakigii uu ruux ku soo urursaday kulli si guud ay noogu sheegeen laakiin inay cadeymo badan u baahan yihiin oo baaritaanka gacanta ku hayaan bay noo sheegeen annaguna kulli wixii baaritaana annagoo si guud baaritaanka wixii ka soo bax ku qanacsana haddana kuma qanacsanin sidii ay ka hor dhacday dowlad deegaanka ka dhacday mar walba in ruux qoomiyad kale intuu dilo in haddana uun xabsi yar ama waxaan naf lahayn ama dadka uu lagu samirsiinay lagu sijeedinay dhacdo ma dooneyno sababtoo tahay qofkan Soomaali haduu dil lahaa maanta marxaladda ma taagnaateen waayo
laba qabiil baa laga yaabaa inay isku dhammaan lahayn baa laga yaabaa inay ma garanaysaa garawshi iyo ma garanaysaa iyo tacsiyan badan baan laga yaabaa inaan heli lahayn maanta laakiin niman qoomiyad kale ah oo deegaanka jooga oo meel loo raacday aan jirin oo xukunkii iyo marka dawladda gacanta ku haysa weeyaan marka hal baaq baan dawladda u dirayaa si guud dawladda baaritaankeeda wado laakiin baaritaankeeda ha noqoto mid natiijo dhasha ha noqoto oo dadka shacabka iyo deegaanka ay ku farxaan oo hawshana seen u soo noqon inay ka yeeshaan istaraatiiji inay ka yeeshaan qorshayaal ka yeeshaan dhacdadan mar walba way dhici laakiin habkii dhacdooyinkan yararka loo yareen lahaa inay qayb weyn dadka qoysasay cilmigeeda leh way aragnimadeeda leh duqeytida haday noqoto siyaasiyiinta iyo ma garanaysaa culimadiinka dhammaan inay hawshan hawl qaran laga dhigo arrin fool xun haday waliba wax laga qaban waayana meesha meel ka si fog bay tegi doontaa marka anagu dawladda waxaan uga fadhinaa cadaalad baan uga fadhinaa maanta aan uga fadhinaa berri baan uga fadhinaa kiiskana waxaan jecelnahay kiis la iskaga aamuso inuusan noqon nin walbaba ku xisaabtama inaan anagu aan dhoorayno aan ku kor joogteynayno haddaan duqeytidii deegaanka nahay haddaan bulshada nahay iyakuna dawladdan inayna isdhiganin ayna u arag waxa berrina mar horena dhacayna eegana dhacay berrina dhici doona inayna u arag si seriously si ano dhab ah hawsha u jaan baan aad dawladda uga codsanayaa anoo duqeytida deegaanka ka mid ah waxaan aad uga codsanayaa inayna hawshaas sahla u arag hawl adag oo deegaanka iska daayay 30 milyan oo Soomaali lagu tilmaamo waa nabar Soomaalida oo dhan taabatay aanu qiyaasaya ani kaliya uma dhicin khaasatan si guud dawlad deegaanka haddana Soomaali oo dhan bay ku dhacday marka idinka warbaahintiinan Burgabo media Erer media Gamaadid media aad baan idin bogaadinaa bulshadiin inaad saa afrilaadkiisa ugu shaqaysaan dadkan aad u shaqaynaysaan waa dadkiina weeyaan mas'uuliyad baa insaaran mas'uuliyad ballaana dadka maanta wuxuu ooman yahay warbixin buu ooman yahay warbixinta baa ka awood badan wax walbaba haddii aad fahantaan idinkuna waxaad noqonaysaa dad bulshadiina u adeeg aakhiri adduunna waad ku liibaanaysaan haddaa laakiin aad fahmi weydaan meesha bulshada ka jilicsan tahay meesha bulshada laga soo gelayo waxaasoo dhan dadkii awli lahayd baa tihiin aadna waa idin mahad celinaa dhalinyaro soo koraysaa tihiin hore u socdaan leeyahay annagana dawladda naga gaarsiiya farintaas adag waan ka baxay waxaan kaloon iloobay oon rabaa inaan ku daro maanta kolley dad badan oo caraysan oo hawshii falkii dhacay ka carooday baa xoogaa rabsho yar baa dhacday oo dad caraysan oo leh maxay saa u dhaceen baa jiray dadka waxaan u baaqaynaa waxaan kiiskan dawlad baa gacanta ku haya inay dadku istijiyaan dawladdana gacanteeda aan laga bixin dawladdana iyadana waxaan usoo jeedinaynaa dadkan waa dad caraysan iska godooday dadkoodii wax la yeelay shakhsiyanna qoys kale lama iyaka labtoo in la yeelay dareensan sayna waxa u soo dhicinna dawladda ku baraarujinaysa carab bulsho inay jirto ficilo inay ku dhiirigeliyaan dawladdu inay tallaabo inay qaataan ay jecel yihiin bay ka ahayd xumaan iyo dawladda ay ka hormanayeen midna ma ahayn taa hadday dhib ka dhacay anaa dawladda ka raaligelinaya dawladdan waxaan leeyahay dadka caraysan ma garanaysaa rabashka yarka sameeyey dhagax tuurka yara sameeyey waxaan jecelnahay in si degdeg loogu soo daayo aan dawladdan aan ka taasi qaadanin dhib kale iyo hawl kale iyo meel kale aan loo saarin in loo arko dad dhibaataysan oo dhibkoodii dareenkooda rabay inay muujiyaan in dawladdan saa u aragtaan jeclahay wabillahi tawfiiq bismillahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun shalay waxaan ugu dhacday geeri naxdin badan oo aad bulshada weynta deegaanka Soomaalida meel walba joogan aad looga danqaday yaa magaalada caasimadda Jijjiga ka dhacday gaar ahaan qabalaha 13aad Keela Harar gabadha waxaan ahaan adeerkeed baan ahaa ilaa shalay hawshu markay dhacday ilaa iyo maanta hawsha waan ku jiray marna maana ka tagin meesha marka shalay gabadhii markii halkan ficilka waxa geystay 4 nin oo qoomiyadaha kale Itoobiyaanka ah ficilkii markuu dhacay gabadhii waan qaadnay dhakhtar baan geynay dhakhtarkii markii la geeyay gabadhii waxaan lagu yiri gabadhii waa dhimatay marka waxaan ku aragnay gabadha cunaheeda waxa ku xunaa xarig baa ku xunaa waxaan ku niri marka walaal gabadhii kalkaaliyaha waxaan u sheegnay meesha waxaa jira shaki maadaama shaki uu jiro
walaal gabadha A ilaa Z qumaatu nooga baadh baan ku niri macnaha yacnihii waxaa ka shaki waxaa jira xaa kufsi ah in gabadha loo geystay gabadhii markii ay baadhay waxay tiri walaal anu shakigan ma caddayn karay waxaad samaysaan dhakhtarka weyn ee Kaaramarda intaad geysaan halkaa ka soo caddaystay nagu tiri markii gabadha waan sii qaadnay waxaan geynay dhakhtarka weyn ee Kaaramarda dhakhtarkii baa noo yimid waan u sheegnay waxaan ku niri gabadhan magaranaysaa kufsi waxaa jira shaki waxaa jira kufsi ah waxaan u baahanahay inaad noo baadhid isla markiiba gabadhii intuu baadhay yuu u arkay caddayn buu soo saaray in gabadha yacni la kufsaday marka gabadhaas oo 11 jir ah Faadumo Zahra Waas Carab Waas Maxamed ayaa gabadha magaceeda la dhaayay waxay ahayd gabadh yar oo 11 jir ah arrin naxdin badan oo aad yacni anigu indhaygan ku arkay magaranaysaa dhakhtarka markuu tusiyay calaamadaha loo geystay yacni waxaan hadda aan soo bandhigi kara ma aha yacni arrimaha nagu dhacay waa mar dil marna oo kufsi marna kufsigii baa yacni kufsi xun oo magaranaysaa hadda yacni afkayga aan soo marin karin yaa gabadha ku dhacay hadee arrintan macnihii arrin maanta annaga kaliya noo taala ma ah waxay u taalaa bulshada deegaanka Soomaalida u taalaa qayb walba xafad walba dad badan baa noo yimid xukuumadda maayarka magaalada Jijjiga kaliya noo yimid cid kale noo timid oo yacni hawshan nooga taxsiisay dhibaatada nagu dhacdana la qaybsatay marka laga reebo laba wasiir oo Cabdirashiid la yiraahdo maarayaha interpreska biyaha ma jiro annagii macnihii moral jabba arrintii nagu keentay maanta waxay ahayd in la garab istaago in dhibaatadan jirta ee maanta dhacday ee yacnihii ninka walaalkay ku dhacday in maanta nala qaybsado ayay ahayd sababtoo ah maanta haddii xaafadanada ka dhacday berina dee xaafad kale ka dhici marka saa maadaama hawshu ay tahay annagu waxaan u baahannahay walaalayaal cadaalad baan u baahannahay annagu cadaaladdan u baahannahay waxa weeyaan in intii raggii la qabtay 4 nin baa la qabtay hawsha ka dambeysay 4 nin xabsiga ayay ku jiraan annaga gabadhii way naga dhimatay samir iyo iimaan laakiin waxaan u baahannahay hadda annagu waa cadaalad kaliya ah haddaba cadaaladda u baahannahay ma aha 4 nin intii yacni jeelka la geeyo oo 3 waqti cuntada loo qabto miisaaniyada loo qabto chiefna la siiyo in 6 sano ama 10 sano lagu xukumo annagu waxaan u rabno cadaaladda noocaas ama cadaaladda annagu u baahannahay gabadh baa naga dhimatay gabadha naga dhimatay magaranaysaa cadaalad sax ah yaan dawladdu annaga uga fadhinaa